xooggeena inaynu sida awrta aakhira aragna maahay waxaynu u baahnay inaynu ummadeenna xooggeeda tusno intay dunida joogaan hatta aanay ninna u baahnayn caalam islaami nuclear power wuu haystaa oo aqoon-yahan wuu haystaa oo dhallin wuu haystaa oo dhaqaale wuu haystaa oo dhul wuu haystaa oo xoolo wuu haystaa oo wax bini aadam uga baahan yahay dunida ku nooli ma jiro aadanaha kale wuxiisoo dhan wuu ka maarmi karaa haddii caqli uu yimaado qofka bini aadamkii isagaa dhaqaalaha sameeya isagaa cilmiga sameeya isagaa aqoonta keena bini aadam markaad hesho ayaad xoog heshay dunidu maanta waxay isu gumaysataa say u kala dad badantay say u kala xoog badantay china maanta dunida waxay doontaabay dowladda china samaysaa lagama hadlo waayo marketka ugu ballaadhan ee dunida jirta shirkad rabta inay marketkaa weydaana ma jirto waxaa dowlad yurub oo dhammi waxa mashaakil china ka jira kama hadlayaan waayo waa market dhaqaale waa suuq baaca mushtara aan cidina ka maarmin idan dadka badadiisu khayr baa ku jira mid dhaqaale iyo mid adduunye iyo mid waliba wuu ku jira haddii iimaan u raacana khayrba wuu ku dhammaaday ilaahay wuxuu leeyahay markaa dadka kala tegay waa caqli xumo sharcigaba ka kaale markaad sharcigaba ka timaado waa caqli liita caqliga ayna qaybiya